dadka Soomaaliyeed waxaan u baahanahay indhahoodu kor u taagnaadaan dawladahaas inay fiiro gaar u yeeshaan dawladahaas in badan oo ka mid ah waxay diidan yihiin dhaqaalaheena inaan la soo baxno waxay diidan yihiin inaan xorowno taakooyin baa loo dhigayaa dawlado idinka aad garanaysaan oo markii xilliyadan oo kale la soo gaaro shaqadoodu waxay tahay inay siyaasiyiinta Soomaaliyeed kala laalushaan kan u yeer lacag si orod wax qarxi orod wax kharib orod wax cay orod wax dhib taaka dhig xilligoodii waaye waa mawsimkii xilligii beertooda ku jirtay waaye waxaan ognahay inay dawladahaas hebel u yeer haddana hebel u yeer haddana hebel u yeer deedna waxoogaa yaroon micno lahayn mararka qaarkood saaxiibaday qaarkood runtii waxaan ogahay ayaguna ay og yihiin erayada ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed inayna ula jeedin inay meel kale u wadaan anna waa ogahay asna waa ogyahay message-kaas hadalada qaarkood waa xisaab xil waana waa ogahay asna waa ogyahay dawladda ku socda oo qorshe kale loo wado oo waxyaabo yaroon micno lahayn la dhaafsanayo dadka Soomaaliyeed dantoodii labadii arrimood ay abid ku soo dagaalami jireen ee lagu yaqaan inay kaligood isku wadaan oo ah difaaca dalkooda iyo doorashadooda in lagaga mashquuliyaa la rabaa dawladahaas in badan oo ka mid ah waxay diidan yihiin dhaqaalaheena inaan la soo baxno waxay diidan yihiin inaan shidaalkeena la soo baxno waxay diidan yihiin resourcekeena la soo baxno waxay diidan yihiin inaan xorowno taakooyin baa loo dhigayaa abidkeedna waa nala soo dhigi jiray nasiib darro mar walba dad Soomaaliyeed ayaa u khidmeeya cadowga mashaariic dalkan ayaa laga samaystay markay xilliyadan oo kale la joogo in la yiraahdo go'a idig igu shub anaa hor istaagaya anaa dhinaca ka soo jijabinaya dadka Soomaaliyeed waxaan u baahanahay indhahoodu kor u taagnaadaan waxaan rabnaa inay fiiro gaar u yeeshaan dadka noocyadaas u shaqeynaya inay fiiro gaar u yeeshaan dawladahaas inay fiiro gaar u yeeshaan taas aan u baahanaa